Guddida Wadaxaajoodka Nabda Gaalkacyo ee Puntland ayaa maanta kulan ay iskugu yimaadeen magaalada Gaalkacyo waxa ay kaga hadleen xaaladda ammaan ee magaalada Gaalkacyo iyo wadada xiriirisa magaalada Gaalkacyo iyo gobolada Dhexe ee xirnaa muddooyinkii ugu dambeeyay. Kulankani intii uu soconayay ayaa waxa ay saxaafadda ka ahaayeen dibajoog markii uu soo ilaaday kulankan ay yeesheen guddiga waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah guddiga wadaxaajoodka nabadda Gaalkacyo ee Puntland waxayna baaq u direen wakiilka qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya uguna baaqeen inuu soo farageliyo xaaladda magaalada Gaalkacyo ogaadaan cidda gardaran. waxay go'aamiyeen dadka islaamka ah iyo dariskooda inay nabad kula noolaadaan. qoladan la yiraahdo galmudug iyo ciddii kaleeto inay u soo dhowaadaan nabadgelyo in lagu noolaado. dhinacayaga wadadu waa ka furan. waxaan kaloo ugu baaqaynaa cidda dhinacooda xidhay inay furaan wadada. jidka xiran waxaan soo jeedinaynaa in la banneeyo. waxna waa wada leenahay, waxna waa kala leenahay. walaalaha iyo galmudug waxaan u soo jeedinayaa wax waa wada leenahay oo jidkaasi wixii la mid ah weey. waxna waa kala leenahay guryaha iyaga iyo wixii dhexyaal iyo wixii inkastoo la isku haysto jidkaasi inaga wayna ka dhaxeeyaa, Soomaalida kalena waa ka dhaxeeyaa. waxaan idin soo jeedinaynaa in la furo. 2 bilood iyo siyaada dagaal ka socda, bal waxaad isweydiisan nimanka dadka mas'uuliyadda sheeganaya cid dagaalka ka hadashay iyo sidaas laga yiraahdo cid tiraahday ma jiro. hadalka guddiga ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ay xirneed wadada xiriirisa magaalada Gaalkacyo iyo gobolada Dhexe ee dalka Soomaaliya. Abdullaahi Maxamed Sheekhdon, TV-ga caalamiga Home Cable, Gaalkacyo.